العدو مغكري دوشيسيو برتو محاصلي العدو مغكري دوشيسيو برتو محاصلي ومريو عديني يكم مشيع عمر ومريو عديني يكم مشيع عمر قيلوني مركا دلي مرا أبط كالو ديغي مسككا مفوغايي مليلي عاجل عدا اسمها شريمين مركا دلي مرا أبط كالو ديغي مسككا مفوغايي مليلي عاجل عدا اسمها شريمين markiyaan ku heegaba muxubbada kalgacalka meel fogiga gaadhee mahadkayo naftaydii waa tanu ku magto tamarmi mayse الله مغاني أديقني هموغان بسم الله الرحمن الرحيم كلان سوى عنه وناكسن داوديال كسو دوادا برنامج قاره oo aan ku eegi doono socdaal gaaban oo aan ugu magac daray socdaalkii guusha kadib jabkii al-shabaab ka soo gaaray geesiyada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan gobolka Hiiraan maleeshiyada argagixisada ay ugus ayaa horay dadka reer guuraaga ah ee dagabariga gobolka Hiiraan uga kaxaysan jiray si qasab ah xoolahooda waxaana taasi ay keentay kacdoon ay sameeyeen dadka deegaanka isla markaana ay abaabulaan dhalinyaro loogu magac daray macuusley oo shabaabka ka suuliyay dhulkooda si nabadgelyo ahna xoolahooda ku dhaqda iyagoo xaq u dirira socdaalka safarkayga oo ugu wehelinayay gudoomiyaha cusub ee degmada Maxaas Muumin Maxamuud Xalane Muumin Eelay ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ahaa saraakiil ka socotay hay'adda badbaadada carruurta ee Save the Children kuwaasi oo xafiiskoodii mar kale dib uga yeegleelay degmada Maxaas tan iyo markii shabaabku ay ka arriminayeen degmadaasi uga diiday inay ka howlgalaan waxaana taasi ay daliil u tahay sida looga guuleystay cadawga ummadda Soomaaliyeed ee diidanaa nolosha iyo horumar walba oo bulsho ay ku tallaabsato inkastoo aysan jirin wax cabsi ah haddana beddelkeedu waxa ay dhaayahaygu qabanayeen intii aan ku sii jiray wadada dhirta dowga leh ee udugeedu wacan yahay xooluhuna barqanayaan reer guuraaguna isdhex qaadaan socdaalka safarkayga waxaan ugu dambayn lugta sii mariyay tuulooyin ay ka mid ahaayeen ceelgaal jawiil beergadiid coomaad raqso caliganay teedaan hees bukure iyo tuulooyin kale badan taasoo dhammaantood dadka ku nool laga dareemayo sida ay isugu duuban yihiin ugana soo horjeesteen cadawga ummadda Soomaaliyeed wuxuu waqtiga isguraba dadka gaariga ila saarana ay sheeko iyo kaftan maaweela ah la isweydaarsado waxaynu soo gaarnay tuulada Gani Rubad oo aan sida uga fogeyn degmada Maxaas halkaasi oo waxgaradka tuulada ku nool warbixin iga siiyay xaaladda dadka iyo xoolaha halkaasi ku nool intii aanu gobolku dhicin malaha wax yar ka harsan tahay xilligii afurka ayaan gaarnay degmada Maxaas ka hor intii aanu gudaha u gelin degmada waxaana lagu celiyay control ku yilay duleedka magaalada Maxaas oo lagu jagreeyo ama lagu hubiyo gaadiidka galaya magaalada iyo kuwa ka baxaya intaba durbaba waxaana loo fasaxay inaan gudaha u galno degmada Maxaas waxaana gaarnay goob si gaar ah nolol kugu talagalay afurka kadib waxaan ka codsaday gudoomiyaha degmada in aan gudaha u sii galo magaalada inkastoo uu ii ogolaaday haddana waqtiga oo xilli habeen ah uma helin sidii aan wax u rabay oo dhan haddana dhalinta reer Maxaaseed ayaa ii sheegay in habeenkii xilligii aan rabo magaalada aan ku caweyn karo waana arinta sida aadka ah ii sii farxad gelisay si gaar ah gudoomiyaha degmada Maxaas ayaa kulan gaar ah la qaatay waxgaradka degmada Maxaas iyo saraakiisha hay'adda Save the Children ee xafiiska ka furtay degmada Maxaas muga horo gudoomiyaha degmada iyo maamulkiisa iyo madaxda Save
والسلام إلى وحنا السلام إلى سلامة السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصل وين هنا وأنا ما حد علينا هنا تصدقنا هالكاسو بحق وأرين هرب الله أنا وأكله هيني هذا أنا إله سكها نكيني وحين قد حيانا وحجعلنا هنا سي وأنا أكسن وشغينا قدوم المؤمنة وحوري لغني الهاين وهو الشقي جيران غير محاسد سيف ورنتيس أيضا حوقا محاسد لغاش الشكل قوانين آل عبد الله يراه قدومي أهاي وسيف مقو سوار خي وسوي غير محاسد يا داس من اللي متقلين من الله شقينا ومكينا مس مكينا أيوه والله شري شرودنا واشيقي شغالها أيضا أو مدح برنامج wax qabiiliyo wax sheegan waxa kala dhaqamaha bulshada loo qabanaha ka weyn intaana waa ku dariyay baahida ka jirta degmada ama seef ay u qabto bulshadu wax yar maahan cid marka iyagana kiixmo ku dhex jiro macnaha inuu khalad ka galo ama yaani xaq laga leeyo guri kaligeed oo istaakul u saaro hay'adani waan ka digaynaa waana ka hortegaynaa وانا كمان عينا هدي له له أقلاده ولا له إن نو كان يعني سيفنا هذا علينا تي شغلة الجودة وما عرفت تسيد توصلنا حتى يكون جودتنا الله كده كوي كوجارتين دبوا وسكر ده كوجارنا الله نجنا جالسين إن شاء الله تعالى هذا الكيجي تحسن كسكر وعن أنت سكدرة هاري واحد لوجا شنقرية إن ندت كود الدقين nin imtixaan gala iyo nin baabuur qaatay iyo guri loo kariyo runtii maxaas masaajidka dhagaxa deegaanada xukunta markii liiraah laga dhiso oo masaajidoo nin shakhsi soo sadaqaystay qofka ka dhisa culays ay ku haysa wuxuu leeyahay rarkii qarasha ku baxa dad badan oo in qadaraas soo qaatay ee qabaho iboobaha jooga masaajidka xabaka tuulajiinka ku taalo kuwa kale ku yeelina ku kordhinay iga dhaf waa masaajid wax la cuna maahan waxna gurgiisa geysanana ma hay'adu waa la mid markii la yiraahdo maxas hawlka soo fuli service-kooda iyo waxay ku xisaabtamaan ha kala kulmi kara ma lagu soo dhaweeyna masaada wax laga mudo anu waxaan aad iyo aad u baraarujina in magacaas dhulku waa dheeraaday wadan ma lahan saasay tahay waa kala go'an yahay waxyaalaha qaar in lagu qaato maxas qofkii maanta soo xusiistay inuu mudnaan gaar yeesho oo yiraahdo maxas soo go'toon oo miracad loo soo maray oo loo soo mara udugley qofkiiba soo xusiistay oo walaala Soomaali cid uu ka anaada in la yiraahdo wuxuu mudan yahay in la marsiyo midda gaadiid iyo waxaas waa run adeerkii Maxamed Siyaad lacagta baabuurka ninka qaataa qofku shaxad siiyay muugiga asaa ku taqrifa ninka shaqaalaha hore wuxuu maqaayadahan iyo dukaan wax uga gata muugiga asna ku taqrifa laakiin waxa lagu taqrifaleen ka bilow Bristol إلا لعقت FSL كله هدي إصابة حد دتك جاري جرتي أنت قول حيث الشخص جار مكتخرف فلا واحد مكتخرف فلا مركي وير تحي دور بقولك فاضر محاسد أو دور كنا قويسي جارسينيس سلام تبدأت وضيعش دقن كهذا نلبي وقت أرنت كهل ليسي آدي ومهتفيهين أرنت سوق وين أنا آدي أسوق وين سدرنتي وحماش وما عندنا المهم دوا واحد قطع بس أنا حاجاي ابنك اللي المامو ودبدا يهدي ابن درج gudaha ay hoo dadkan hada xadiisa an arintaas ابنك aad markasta loo ilaa odayaashii inta ay dawladina dadka wax garadka qaybiisa kala duwan sidii hore ابنك uga shaqay jirtaan in mar labaad la balaagtay sababtoo ah marka hore degmadan wax joog jiray NGO aan wax bixin oo adiga oo waxay iska tasiilaada muuqaal hada wax guriyo waxaan ku sheegaa cid guriyada wax u qabtay isa jir waxaan islaahay dadkan hadda hay'adda seef dadka sidii hadda ula muuqato amba ay tahaba in baahidi soo koobtaba oo hadii hadda wax xaq caafimaad tahay ee hadda inta laga furaa ay wadato
hadday quudintii iyo nutritionkii tahay nadaafadii hadday tahay qaybaheeda kala duwan sidoo hadda ninkan dhalinyarada walaalka ah walaalkeen u sheegay qaybtii waxbarashada wax ka codsanaynaa in ayadana lagu soo daro siday hadda baahida u dabooshay hay'adda saafa uga falayno inaan aad uga faa'iidaysano waxaan rabaa marka arrintaas in NGO-yadu horeeto meesha localka meesha ka shaqayn jira in hay'adda saaf aan laga mid dhigin oo sidii hore gacmaha ugu hay jirna haddana ugu hayno sidii hore ugu dhabareeyay jirna ugu dhabareeyay sidii hore ugu faa'iideysan jirna aan ugu faa'iideysan wax neef hadda aragtid dhibna waa agyaala hadda neef aragtid dhibna waa agyaala neef kaligeed la iska daldalana ma jirto waxay dhimana ayaga ku diraaho hadda baahidaas qalba naga dhimana dhihi doona wuxuu markay maana in kamid ah tamaad muugiyo ma wada yimaadeen wixii oo dhan hal mar ma la wada keeno qayb kamid ah lagu bilaabo sababtoo wixii oo dhan hadii la wada keeno waxayna shaqeynaa ma la ogaba qayb kamid ah lagu bilaabo wixii horta ma shaqeynaan ma shaqeynaa waa shaqeynaa nugu leeyahay ma inta kale lagu soo kordhiya waxa qayaasa marka waxa maanta dadku isweydiinaya horumaro xafiiska saafo dib maxaas ugu soo laabtay nasiibuna waa intaas horumar weyn waa maanta dadkuna waa ku faraxsan waxaan qabaa intaasoo sidii hore noogu shaqeeyo oo shalay daruufo jira awgeed ayuu xafiisku xirmay cidna lagu eedayma waa isogna qaabka xafiiska saafo u xirmay cidna lagu eedayma anigu aad ku milhilan u malaynayna dadkayna sababa jira u xirmay hadda waxaan qayaasana sababay maslaxad kale waqti kale tafahmadu waa gooni laakiin sababa hadda ku xirmi karo haddana intayna ka midaysan oo ilaashan sababa ku xirmi karo ma طبعا waxaan rajaynayaa in la saafahayn biso hay'ada kale tan waqtiga soo socday imaana oo meesha hadda saaf ka shaqaysa qofkii kama shaqay karayna waa qof inuu shaqeeyo ugu talagalin qof inuu shaqeeyo ugu talagalin waxaan qabaa marka arrintaas odayaasha cid gooniyo u xilsaara ma jirto aniga muumina waxay ka go'an gudoomiyaha degmada aan ahay haddii tuulo tahay haddii bar tahay ماشي ابن درة كجرت أم بس سيف هالوجه أم بأمة كلا هالوجه أم بحبينها نوعات أم بمالها إن استعب إذا ما ابن جدي بوليسين يهدي ملتريين يهدي أمصوي هنا ودياروا أنت أنا إيجا سوغرسي حدنا مشي كسي وضعنا دولة ولا وحنا بعرف تاس إن عد أن لسوها الليل وحنا وضع أن لسوها الليل هبلا من الهبل أما شغلة هبل الوجه هلا shaqadu waa qaybna dad lagu ogeey qaybna dadka ka wada dhaxaysan midaan tiina ka wada dhaxaydo oo qof gooni lagu halay waxaan ku dirayaa arinta hadda odayaasha dhaqanka ay ka hadleen oo ah gurgu iyo gaadiidka iyo shaqaalaha sidii lagu soo xulay ninkaas odaga waa u sheegay waa ku wada qanacay gurgu iyo gaadiidka waaba wax sidii hadayuun odayaasha u sheegaan shakhsiyaal ay ku noolaan wax soo weyn baa shaqaasuna oo dadka aniga ka mid yihiin ayaga ka faa'iideysana mugu hadda kolba sidoo ninkaas odaga sheegay kala dadku kala faa'iideysan ma ayaga oo ka faa'iideysana wax qof ka faa'iideysana oo yar oo nolol wax lagu mashquulo ma dhamaado wadan gaar wax lagu mashquulo ma dadkaas guud in looga faa'iideeyo oo hadda sida aan qorsheynayna hadoo lagu yiraahdo waqtiga soo socda haddii arrintu si wanaagsan ay ku socoto kana team kale iyo face kale iyo tuurin kale lagu gudba iyo shaqaale kale koob aan bay intaan aan ka badan baabuur kale koob iyo guri kale koob intaas marka in gaarsiisnaa la rabaa ma ahan arrintu degmada hadda joogno bisma degmada waa dad tuurinka ka caqabad badan dadku asoo wax leeyahay oo wax gooba wax leeynaya goobtaankiisii wax ku halayna amba wuxuu leeyahay waxaan adigu amba hel la waabo qof ku fikiraa jir oo dadkiisii guud umadaas tiisi ka dhax fiirinayo ka dhax weynayna daataan rab dad badan saas ku firay ibn darxada dadka ka shaqeynaya ku gata waxa laga rabaa odayaasha dhaqanka tiina tuulooyinka ma ahan
shaqadan oo xil saaran waa tuulooyinka iyo intii laga shaqeeyayna ama inta ka wada shaqeeyna oo dhan hadda waxaan qiyaasayaa waqti dhow baa ka baxaan meel degmada kamid ah oo tuulaha uu saaka shabaab ku sugan yahay inna jiro amba xil dheer ka baxaan amba xil dhow ka baxaan hal tuulo saaka kamid ah saaka degmada uu shabaab jooga lama inta ma waxa uu intana waa uu meesha la yiraahdo meesha ku dubayay Soomaa aydan hadda waqtidan soo socdo isla ogeyno ciidamada ama soo ciidamada militariga jooga haddana ma la gaarino hadda bankash hay'adaha nidaamka ayna kala gudaha ka shaqeeyay muuqda hadda hay'adaha kama shaqeeyaan ayna waa gaarsiin doonaa oo waa face ka soo socda sidii aan qorsheynaa doolay odayaasha marka iyo maamulka seef iyo ururka dhalinyarada dhammaan aadaydu soo dhaweynaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh degmadu waxay leedahay goob waxbarasho iyo xarumo caafimaad inkastoo la ii sheegay in uusan xilligan shaqaynin isbitaalkii weynaa ee degmadu lahayd dhinaca kale waxaa soconaya dhismaha xarun weyn oo loogu talagalay in lagu xanaaneeyo carruurta agoonta ah taasi oo loogu magac daray Sheekh Maxamed Macallin College oo gacan weyn ay ka geysanayaan dadka deegaanka iyo jaaliyada ka soo jeeda degmada Maxaas inta kadib waxaan u sii boqolnay magaalada Moqokori waxaana sii marnay tuulada Suubo oo u dhaxaysa degmada Maxaas iyo Moqokori muuqaalka dadka iyo xooluhuba aad bay u qurux badnaayeen waqtiga oo aad noogu yaraa awgii kuma sii nagaanin tuulada Suubo gabalku wuxuu noogu dhacay inta u dhaxaysa Suubo iyo Moqokori xilli habeen ah ayaana gudaha u galnay magaalada Moqokori sawir mooyee muuqaal kale kama haysan Moqokori sheeda sare ee magaalada waxa indhahaygu qabteen iftiinka leerarka cadceedda ku shaqeeya durbaba waxa iga galay shaki in halka aan ku soconno aysan ahayn Moqokori gudoomiyaha degmada Maxaas ayaana weydiiyay in uu iga hubiyo si kaftan ku jiro ayuuna iigu xaqiijiyay waxaana intaas uu raaciyay inta labadan ay tahay fakar ka yimid dhalinyarada reer Moqokori inkastoo Moqokori aysan ka mid ahayn degmooyinka shanta ah ee gobolka Hiiraan haddana waa magaalo la oran karo waa mid ka baaxad weyn kana horumarsan degmooyinka kale ee qaar gobolkan gudoomiyaha Moqokori Xasan Barre Makaraan Cabdi iyo odayaasha magaalada ayaa iiga warbixiyay xaaladda ay soo martay iyo sida xilligani ay tahay iyagoo sidoo kale aad uga hadlay baahi xilligani ka jira magaalada iyo sida ay ugu baahan yihiin in lagu gacan siiyo waxaan u mahad celinaynaa mas'uuliyiinta nooga timid heer degmo oo walaalaha ayna ah waan soo dhaweynaynaa waxaan ku salaamaynaa 114 Quraanka Kariimka annaga waxaan nahay reer Moqokori beeshaan aad baahi weyn ayaa ka jirta waxa ugu horeeya xagga isbitaalka waxa ku xiga xagga waxbarashada waxa ku xiga xagga biyaha midda kalena waxay la qabtaa degmada iyo tuulooyinkooda dhamaantood ayay la qabtaa baahidaas oo ah dadka ka soo qaxay biyaha dadka kale iska dhibaatoon waqtiga wacyiga maanta jiray waxaan leenahay marka heer degmo iyo heer gobolba cid kasta oo wax tari karta inay wax tarto waxa ugu daran bulshada dhammaan haddii la isku soo koobo waxa kale waa la iska noolaa karaa halkan waxa loo qaadaa qofkii haweenaho fool ay ku soo degdegto waxa loo qaadaa beled weyne waxaan leenahay biyaha sidoo kale hal motor ah meesha ka shaqeeya mas'uuliyiinta waxaan u sheegaynaa heer gobol iyo heer degmaba in ay wax ka qabtaan baahidaas ilaahayna ay la kaashadaan sida gudoomiyuhu hore ugu sheegay waxa jira mataqaanay adeegyada maaragtay bulshada ay u baahan tahay haday tahay dhanka caafimaadka isbitaal la'aan biyo la'aan iyo maxuu ahay hadii la ku roon yahay dad badan oo dad soo barakacay oo hadda magaalada ku soo biiray iyo dad muddo hore u deganay magaaladan meeshan waa meel muddo maaragtay aan maamulkeedu uunan israacsanayn waqti badan wax maaragtay hay'ad dawli oo caawisa ma jirto mid maaragtay hadii loo kala caawisa ma jirto waa iska waxaan u baahanahay marka wax support in loo sameeyo wixii la awoodo waxaan ku darayaa reer Moqokori marka uu qaasa muddo 10 bilood ama 12 bilood furun bay joogeen furun waa gara karteen marka meel furun oo 10 bilood furun dagaalaheed waxyaabaha ka jira waa dareemi karteen dad cilmi leh oo aqli leh oo mas'uuliin ah tihiin
intaas waa nooqaas waa loo dheeri degmada qaasatan beesha Moqokori ayadoo degmada Maxaaseed dhamaan qabta arrinkaas oo Soomaali uga gooninahay ama gobolka intiisa kale aan gaar uga nahay waxaan qabnaa taasoo loo dheeriya xagga barakaca dhinaca madax xataa waa looga soo barakacay anaga hadda la soo gaaray cabashiisa dad madax ka soo barakacay oo magaalada macin soo biday oo dheeriya taas haddana loo sheegay hadda saacadahan isna soo gaareen akhbaartoodu iyo cabashadoodu xagga barakacana kulli waxaan la wadaagnaa degmada Maxaaseed waxaan codsanaynaa marka 10 kaas bilood waxaan ka codsanaynaa cid laga caawaday oo dagaalkaas nimanka adduunka oo dhan hadda isugu tagay hadduu muslim yahay hadduu gaal yahaba 10 bilood beel yar degmo yar oo dagaal kula jirtay waa dareemi kartaa dhibka ka jira waa nimanka adduunka oo dhan hadda isugu tagay haddana loo taaglaayahay waxaan codsanaynaa in la ka caawiyo culayskaas la wadaago haddii ay tahay dawladda dhexe hadday tahay amisom hadday tahay hay'adaha mataqaanaa qayb walba leh waxaan codsanaynaa in naloo gacan fidiyo maanta in naloo gacan fidiyo intaasaan codsanaynaa dawladda dhexe federaalka Soomaaliya qarankii Soomaaliya matalaysa in dadkaas bulshada oo culays ku saaran yahay ay u gurmato waxna ka qabto waxaan kaloon rabnaa inay arintaas bulshaweynta reer Moqokori wax ka qabato hay'adaha dawliga iyo kuwan dawliga ahayn ee gobolka Hiiraan ku sugan inay wax ka qabtaan aan codsanayno maadaama dad colaado hayso iyo dad biyo ka soo barakacay culaysyo iyo dad colaadeed inta ay joogan culayskooduna bulshada qofkii islaamka ama bani'aadanimada wax ka garanayana uu qiyaasi karo waxaan codsanaynaa intaas inay wax ka qabato labada baahiyood oo taaganu waa labadaas dhinaca waxbarashada waa haysanaa waxna waa looga dhiman yihiin ayda waana haysanaa waxna waa looga dhiman yihiin xagga ammaanka haddii loo kaco ammaanku aad buu hadda noogu sugan yahay ilaahay baan ku mahadinaynaa mas'uulintii iyo dadkii wax ka qabtay baan ku mahadinaynaa ammaanku aad iyo aad oo hadda noogu sugan yahay culayskii badnaa waa naga tegey waxaan sheegaynaa marka baahidaas qatarteeda leh oo biyaha iyo isbetelka ah ta saddexaad waxa waaye magaaladu hadda inkastoo maaragtay tuulooyinku ay badan yihiin dad badan oo abaarihii horo tabartoodu liidatana ay ku soo qaxeen ee xoolo beelay ay sidii u degan yihiin haddana waxa ku soo baxay TB baxadii soo dheerayday dadan asiga xataa magaaladu ka soo qaxay aan ku noqon karin ayaa haddana magaaladii jooga dhalinyarada Moqokori oo iyagu kaalin weyn ku leh horumarka ay magaaladu ku talaabsatay ayaa qaar ka mid ah iyaga kula kulmay garoon macmal ah oo kubadda ay ku ciyaarayeen ciyaar saaxiibtinimo oo dhexdooda ah sidoo kale waxaan tagay ceelasha Moqokori caanku uu ku yahay sida ceelkii weynaa ee loo yiqiinay ceel weyne oo uu iiga muuqanayay burbur baaxad leh oo gaaray iyadoo qofkii arkaa uusan islahayn halkan ayaa ceel ku yaala waxba yaan ku dheeraan xaaladda magaalada Moqokori inkastoo aan marti ku ahayn haddana intii aan ku sugnaa magaalada waxaan dareemay isjacayl iyo soo dhaweyn diiran oo aan horay u arkin oo dadka deegaanku ay muujiyeen isku soo wada duuboo deegaanada dhaca waqooyi bari gobolkan Hiiraan oo tuulooyin badan ay hoos yimaadaan degmada Maxaas ayaa xilligani waxaa ka jira horumar ballaaran oo dadka deegaanku ay sameeyaan kuwaas oo cadawgoodu meel uga soo wada jeestay hilacdo Moqokori dushiisiyo qortuu maxaasilay tagugo hilacdo Moqokori dushiisiyo qortuu maxaasilay inta ayaan daawadayaal ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan ugu magac daray socdaalkii guusha oo aan ku tagay deegaano ka mid ah bariga gobolkan Hiiraan anigoo Cabdiwali ayaa barnaamijka idiin soo saaray idinna socodsiinayay idina waad ku mahadsantiin daawashada barnaamijkan inta aan barnaamijkan mid lamid ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa ismaqal dambe oo xiiso leh horumar wacan nabadgelyo insha Allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh